dadkan oo ka soo barakacay gobolada dalka Soomaaliya ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaanka Garas-Baaley halkaasi oo dib u dejin loogu sameeyay waxaana mas'uuliyiinta maamulka deegaanka Garas-Baaley ee magaalada Muqdisho oo kala ah gudoomiyaha maamulka deegaanka Nuur Xasan Cali Gaamir iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo siyaasadda ee maamulka deegaanka Garas-Baaley Cabdullaahi Yuusuf Xasan ay dalbeen in dadka dib u dejin loo sameeyo waxaana ay ku baaqeen gargaar bini'aadanimo in la soo gaaro shacabkaasi qaar ka mid ah shacabkaasi oo warbaahinta qaranka mikrofoonka la dhex qaaday ayaa waxa ay ka sheekeeyeen dhibaatooyinka nololeed ee hadda ay qabaan baan haas meel jiifan ma haasan umulana ha jidka ku soo dhan warafaasana biyo baahan soo barkacis inta saddex bir camalan joognay gargaar ma haysano baaho khaajo hadda wax cuneen mal hal sidoo ku bari sidoo ku ergeli wax cunay mal walaalin kaalmeeya walaan siiya baanaas ya wax nu keena dungur ma kees karo walaalin kaalmeeya baahana hayso hooyad ma haysin bi ma haysin masqul ma haysin ana ayaka laaya agnahay hadii ilaahay dhaho wixii ilaahay idin soo dhiiba anna soo gaaro dibkaas ana haysto baa biyo iyo duun qashin ade ilmayni wax soo rarnata waa soo wayn dib baq ameeka imaanade hadii guri ma haysan baanaysa meel ag shaqaysan malaha rafaad iyo duliyo ku jirna biyo biilaan on harad baaho باول تعبان أنا كأماشي من تعبان نفع أماشي حرنتان سوقلني وحي أتوقع إنه قرنتي أنا كنا وباهنا هذا راشون وباهنا قرقارة وباهنا قرقار دق وباهنا واحد معونن لو عشا ماشي نجوقني لو هذا عشا ماشي نجوقني وحبة معونن تذكاس إلهي بتوقسنا مروة هلنا مروة اسكوينا سقال علمي إنروغان أو كان وايل سرير فول واي هذا بحان كتاب بيوت حذيو الموضوع إلا حذير عطنا حتى تبنشتنا دوات يسنا أفرت كون بيها نوقالي إدر حذيو بيها نوقالي نترفعت سنا إنا حتى رحنا بريوين بير مسارنا بير إور ور ولا ليالو حذيو وحنا مجرت ونقولكان قاعدة جرجار أني فيديوي وفعمله إيه أو دوات يسنا oday aa kan xadis biyo sariiro saaran biyo dhaxjir sidoo kale Maxamed Axmed Weydow oo ah gudoomiyaha waaxda lixaad ee deegaankaasi Garas-Baaley ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay xaaladda shacabka isagoo ku baaqay in loo soo gargaaro ummadda Soomaaliyeed waxaan halkaan u nimid inaan indhayno barakacayaasha meeshan ku nool waaxda lixaad waxaan u nimid dad aad u dhibaataysan una baahan gargaar waxaan codsaynaa marka maamulka gobolka Banaadir hay'adaha dawliga kuwa localka أنت بدتكان بدأركيسين سيء ودباتيسين مركوها عصينا إن سيء ودقسيها بدن لسوق جرت كان وأنا مع ستين dadkan waxay isugu jiraan dad ka soo cararay colaadaha dalka ka jira gobolada qaar fatahaada wabiyada ay sameeyeen iyo sidoo kale dad nolol xumo iyo duruuf nololeed ay keentay halkan magaalada Muqdisho ah oo u baahan gargaar bini'aadanimo oo degdeg ah hooyooyin ayaa ku jira caruur haysta una baahan in loo soo gurmado waxaana dawladda federaalka Soomaaliya ay u jeediyeen baaq ah in si degdeg ah looga soo jawaabo cabashada dadkana ay u jeedinayaan madaxda sare ee dalka Maxamed Daahir Degane warbaahinta qaranka Soomaaliyeed